السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمانتو لابد السلام يا برامج كنتوا موجودين فضلا سبسكرايب كي لاون كومنت لايك انت وانو مهم waxaan rabaa in lagu daago runtii arin yar oo dhacay wadanka Germany ka dhacay oo uu sameeyay in Soomaaliya runtii wadanka Germany waxa aad badan ka dhaca arimo aad iyo aad u fool xun oo ay ku dhaqanto Soomaalidu runtii shalay tole waxa dhacay dhaxadin aad iyo aad u muruga badan kadib markii wiil Soomaali uu middo ku weeraray macalinkiisa gaariga bariyay hadda wiilka oo jiray daadiisa 32 jir ayaa wuxuu middo ku weeraray macalinkiisa gaariga waqti xaadirkaas macalinkiisa gaariga wuxuu ku jiray xiisad teoriya arday ayuu ugu jiray xiisada teoriga kadib markuu middadii ku weeraray waxa dhacday in uu macalinkii laba arday oo kamid ah meeshii joogay ay yani isku dayeen inay caawiyaan macalinkaasi ay badbaadiyaan kadibna labadii ardayna meeshii ku dhaawacmeen waqti yar kadib booliskayga ayaa yimi inankii Soomaaliga booliskaygii ayaa dhowr xabadood ku dhuftay dhakhtarka ayaana loo cararay dhaawaciisa sideen la wada socono sanadkii hore dhacdadaas oo kale la mid ah ayaa in Soomaaliya magaalo ku taala gobolka Baaya oo la yiraahdo Fusbrook oo midi la dhaxaray dad meel joogay kadibna dhowr qof u dhaawacay taa waxa dheer muddo isla sanadkaas gudihiisa in ay nin Soomaaliya oo gabadhiisii dilay si xun oo middo la dhacay hadda wadanka Germany runtii Soomaalida ku nool oo lagu qiyaasay inay ka badan yihiin ama ay kor u dhaafaan 50,000 oo qof ayaa waxa jirta dhacdooyin aad iyo aad u la yaab leh oo ay Soomaalidu geysato runtii dhacdooyinkaas waxyaalo badan ayaa u sababa waxyaalaha u sababta waxa kamid ah in wadankan horta Germany yahay wadanka koobaad ee ugu stresska badan dunida oo taasi dadkoodii u dhashay wadanka aanay 90% qofku markuu uu leeyahay xirfad ama uu wax barta ee badan ay ka tagaan ee wadamada u tagaan dibadda inuu ka shaqeeyaan wadankan stresskiisu waa 100% maxaa yeelay waxa sababa cashuurta qofka haduu shaqeeyo lagu badiyo qofka hadii uu shaqada ka soo fadhiisto warqada lagu balamiyo ballamaha lagu badiyo waxaan garnay marka si ganacsi ku soo dhacaan saadirtii qofka uu stresso waxaan raali ka ahayn ama waxyaalaha aan u soo taagnayn ama marxaati ka ahayn waxa kamid ah in dhalinyaro badan oo Soomaali ay naftooda haligaan ay ugu istilaan qaar istirdiray qaar iyagu midiskii qaar kamid ah inamada Soomaaliyeed ee dumarkoodii ay dilaan qaar kamid ah iyagu ay istilaan qaar kamid ah ay dadka ajaanibta ay dilaan sida kuwa wadankan u dhashay oo kala Jarmalka runtii waxyaalahaas oo kale waa masiibooyin aad iyo aad u weyn inkastoo qadartu jirto oo qof kastaaba maalintuu dhashay wuxuu qaban lahaa wuxuu cuni lahaa loox maxfuud ay ku qoran yihiin laakiin waxa jira waxyaalo badan oo sababa warbixintii dhameystiran waatan waxaan rabaa inaan u sheego dhamaan umadweynta Jarmalka ku nool ee Soomaalida walaalayaal waxay nahay dad islaama dad iimaan leh nahay iimaanka waxa kamid ah arkaantiisa inaad rumaysid iimaanka khayrkiisa iyo sharkiisa qadarka khayrkiisa iyo sharkiisa kugu dhacayo inaad rumaysnaatid markaas ay ku rumaysnaan yani hadii ay maanta waxay ku dhacaan wax yani salaano kale inanka Soomaaliga dhibka jira waxa dhowr jeer ayuu taxaanka ku dhacay gaariga taana oo sabab yeelay inay tahay macalinka way jirtaa qadar macallimiintu wadankan way jiraan dadkan laakiin waa inaad aamintaa waxa siinahay wax ku qoran maalinta yani qorantahay inaad baastana aad baaso maalinta qornayna inaad dhacayso okay runtii dadka wadanka la noolahay waa dad extreme yani dadka badana muslimiinta way caan laakiin iyaga extreme racism yani waa dad xaq jir saayida waxaad arkaysaa qof adiga ku shaqaaleysiiyay oo shaqada isaga ku siiyay oo boosa haddana subaxdii Ilaahay soo gudo afka ku booray hadda salaad ka qeyn hadda isaga shaqaale ku siiyay aad u dadka dibadda dadka Soomaaliya oo kale magaalada ama dadka dukaamada joogo kale si kula dhaqmaya wada yaabisa dadkoo dhan waa dad xanaaqsan dadkoo dhan waa dad afka booraya runtii anu sababta ma garanayo Jarmalka waa wadan aad iyo aad ugu dhiban yahay waa wadan aad iyo aad cunsuriyad u taala 100% marka waxaan kula talinayaa dhamaan walaal Soomaaliyeed single family waxa doontaa ha isilaaliya waxa sameeysan kale hadii ay wax kugu dhacaan Quraan akhriso walaalo shaydaanka iska naar runtii waxa inay ku qornaan aamin qadarka aamina inay waxaas ku qornaan aamin oo waxa tiraahdaa alxamdulillah markasta wax kugu dhaca alxamdulillah wala hadii aad xanuunsanaysi hadaad caafimaad qabto labada alxamdulillah wala wixii kugu dhacayna hadii waxyaalo noocaas kugu soo wajahan salaaska tuko weysayso
ilaahay oo toobad keena ruantiina dhiig gasho dee diintaba ma ogola diinta islaamka dad muslimiin nahay dhiigu wuu naga bannaan yahay haddii aad iska shakido adare oo stress badan ku qabto waxaad samaysaa qur-aan badan akhriso isteji naso hurdo fiican seexo iska daayaysaa maleelka waxyaalo badan oo dhibaataa jira waddankaana markhaati ka markaa walaal waxaad samaysaan istejiya qur-aan akhrista ilaahay usoo noqda waxaa soo haray dadka islaamka waddanka jarmalka cusub ee soo galay walaal idinkuna waddanku aad buu systemkiisu adeegyahay isku day inaad barataan waxaad isku daya inaad waddanka systemkiisa fahantaan adoo cusub shaqo markiiba ha bilaabin shaqooyinka markiiba la bilaabaa iskuulka intaa laga tago dhibaatooyin badan bay leeyihiin stressyo badan baa ka imaada kundugyada waxyaalo badan inaad saxdaa ka imaado hadhowna adiga ganaaxay kugu soo dhacaan ganaaxyadu hadday kugu bataan waxaa kugu dhacaysa stress hadduu kugu dhaco waxaa laga yaabaa naftaada inaad haligto ama qofka naftiisa inaad haligto markaa walaal haddaa waddanka cusubta waxaan kugula talinayaa marka ugu horeysa waxbaro shaqaha bilaabin markaad waxbarato waxbarashada dhammaysa kadib shaqee dhammaan Soomaalidiina Islaaliya walaal waddanku aad buu si xumaanay xaaladiisa oo arkaysa dagaaladii waxaan iyo cunsurnimo iyo waxyaalo badan ay iska jira marka walaal Islaaliya aad baan islaam. Assalaamu calaykum.